toddoba xeeladood oo aad ku horumarin karto fahamka wax akhriskaaga oo aad sare ugu qaadayso waayo aragnimadaada waxbarasho ee jaamacadda. Akhrisku waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee aad kobcin karto. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu adag in la barto waxayna qaadataa waqti. Nasiib wanaag, iyada oo la adeegsanayo tabaha iyo xeeladaha qaarkood, fahamka wax akhrisku wuxuu qof kasta u noqon karaa caado fudud. Haddaad rabto inaad guul ka gaarto waayahaga waxbarasho ee jaamacadda, qaad tallaabooyinkan. Hal, deji yoolalkaaga gaarka ah. Dejinta yoolalka waa hab fiican oo aad ku ilaalin karto xirfadahaaga fahamka akhriska. Markaad dejiso yoolalkaaga gaar ah, waxay kaa caawinaysaa inaad diiradda saarto. Waxa kale oo ay kaa fogeynaysaa wax kasta oo carqaladayn kara inaad shaqada qabato. Markaa waa in aad qorshe fiican yeelataa. 2. Kordhi wakhtigaaga adiga oo abuuraya jadwal toddobaadle ah. Jadwalka wakhtiga waxbarashadaada. Jadwal u samee hawlaha qoyskaaga iyo bulshada. Jadwal u samee wakhtiga jimicsiga. Isku day in aad alaarmiga taleefankaaga isticmaasho. 3. U akhri si firfircoon oo ballaaran. Wax u akhrinta si firfircoon oo ballaadhan waa xeeladda ugu muhiimsan ee lagu hagaajin karo fahamkaaga wax akhriska. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad dhisto aasaas wanaagsan iyo sidoo kale kordhinta xasuusashada macluumaadka aad akhrisay. 4. Maaddada ugu adag waa in mudnaanta la siiyaa. Waa in aad ahmiyad gaar ah iyo wakhtiga ugu badan aad siisid maaddada ugu adaga ee aad dhiganayso. 5. Samee xirfadaha fikirka muhiimka ah. Fikirka muhiimka ah waa habka lagu falanqeeyo macluumaadka, fikradaha, doodaha iyo aragtida si loo gaaro go'aanno xog ogaal ah. 6. Soo koob qoraalladaada oo dib u eeg marar badan. Soo koob qoraalladaada ka hor intaadan seexan. Hayso buug xusuus qor ah mar walba. Geli qoraalladaada gal ama folder oo dib u eeg toddobaadkii hal mar. Kadibna akhri fasalka kadib si aad u hubiso inaad u fahmaytay sida ugu fiican ee aad awoodid. Haddii aadan fahmin, weydiiso macallinkaaga caawimaad ama ardayda aad isku fasalka tihiin. 7. Ku celceli, ku celceli, ku celceli si kasta oo aad awooddo. More practice makes perfect. Haddii ay tahay inaad wax u akhrido imtixaan, ha ka dhigin mid ka sii adag inta loo baahan yahay. Dhab ahaantii, haddii aad heli karto hab aad akhrinkaaga uga dhigto mid sahlan oo xiiso badan, taas ayaa xitaa ka sii fiican. Waa kuwan siyaabaha ay dadku ku dhaqmaan. Ku dul akhri asxaabtaada ama xubnaha qoyskaaga ee fahmi kara waxa aad baranayso. Horay u akhri buugaagta ay qoreen qorayaasha garanaya sida ay rabaan in sheekadooda loo sheego. Tani waxay kaa caawin doontaa in fikradahaas la geliyo bangigaaga xusuusta ee muddada dheer si marka wakhtiga qorista uu u soo wareego.